السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمانتينا ميل والبا أد joogtaan qisada maanta waxaan ka hadlaynaa saddex qof lagu xukumay xabsi ayagoo dembi lahayn mid ka mid ah saddexdood wuxuu xirnaa 39 sano daawasho wacan qisadan waxay bilaabatay 1975 wiili iyo roni waa labo walaalo ah waxayna leeyihiin saaxiib lagu magacaabo Ricky saddexdood waxay ahaayeen saddex saaxiibo ah mar walba way isla socdaan labo walaalo iyo Ricky waxay ahaayeen saaxiibo mana ahayn dhalinyaro xun ama dhalinyaro fal xun ku dhaqaaqdo waxay ahaayeen dhalinyaro degan fiican magaalada nabad ku jooga oo dhib lahayn marka waxaa dhacday maalimaha ka mid ah nin dukaan iska leh ayaa la dhacay dukaankiisa ayaa loo galay dukaankii ayaa laga dhacay asagana waa la dilay ninkii markaa la dilay askartu waxay bilowday baaritaan dheer kadib waxay heleen gabar markhaati ah gabadhan waxay dhahday markhaatiyan ahay dadka dilay waxay ahaayeen saddex wiil oo madow ah wejigood ma aqaani balse waxay ahaayeen saddex wiil madow ah macnaha habeenay ahayd mugdiyay ahayd meesha wejigood ma arkin balse ma ogisay ku ogaatay inay madow ahaayeen maadaama ay mugdi ahayd meesha waxay dhahday madow ay ahaayeen saddex wiilal oo madow ah marka askartu waxay samaysay waxay soo qabatay Roni iyo Willy iyo Ricky labo walaal iyo saaxiibkood ayaa la soo qabtay run ahaantii ma ogi xaafadda dad kale madow ma degneen miya ma ogi saddex qof madow Allah isla markii saddexdan qof ayaa la soo qabtay kadibna waxaa la soo istaajiyay maxkamadda marka la keenay la soo istaajiyay waxaa la keenay wiil 12 sano jir ah waxay dhaheen wiilkan waa markhaati wuxuu yaqaanaa dadka dilay ninka iska lahaa dukaanka okay wiilkii ayaa la soo istaajiyay maxkamadda yaa dilay wuxuu dhahay Roni iyo Willy iyo Ricky magacood yaa u sheegay ma ogi wejigood ayaan aqoonsaday saddex qof madow ay ahaayeen sidii gabadha oo kale macquul ay ahaan lahayd balse magacyadooda wuu yaqaanaa yani yaa ku sheegay magacyadood mid kale haddana waa wiil 12 sano jir ah wiilashana waxay ahaayeen wiilal dhalinyaro ah ma la dhihi karo xataa saaxiib ay ahaayeen ama habeenkaas way isla socdeen mid kale saddexdan qof ma haysanin abukaato ama lawyer difaaco way haysteen balse wuxuu ahaa mid oo iska socota ah meesha ayaa la soo istaajiyay bas sawir le waay wax uu u qabtay ma lahan maxaa yeelay alashan waagaas dadka madow waa la nacbaa dadka madow waa la cunsuriyeyn jiray waagaas marka dood dheer lama gelin markhaati saddex qof madow ah lahay wiilkan yarna wuxuu dhahay saddex magacyadood ayuu sheegay okay waxaa lagu xukumay ayagoo caddeyn lahayn yani mididii lagu dilay ama bistooladii lagu dilay ma lahayo meesha ninka oo lagu dilay xataa caddeyn farahood iyo waxaas ma laga helin xataa lama hayo waxa lagu dilay okay ninkan waxaa lagu dilay qorigan bistooladan ayaa lagu dilay ma jirto waxaas oo dhan markhaati ayaa la heystaa magacyadood ayaa la sheegay okay waxaa lagu xukumay dil saddexdood waxaa lagu xukumay in la dilo balse maadaama oo caddeyn laga haynin oo caddeyn rasmi ah laga haynin waxaa la leeyahay okay xabsi daa'im ayaa lagu xukumaa macnaha caddeyn ma hayno xabsi daa'im caddeyn haddii haynona waa la idin dilaynaa marka caddeyn lama haayo waxaa la leeyahay xabsi daa'im iska gala marka saddexdood waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ayagoo dembi lahayn xabsigii ay galeen sanado ayaa laga soo wareegtay 2002 iyo 2003 waxaa la soo daayay labada walaal Roni iyo Willy balse Ricky lama soo deynin maxaa yeelay maxkamadda waxay dhahday Ricky waa dilaaga yani qofka qoriga haystay ama bistoolada haystay waa asaga marka sida darteed lama soo deynin labada kale way fiicnaayeen xabsiga si fiican ay u dhaqmayeen khalaas way soo baxeen balse soo bixitaan wuxuu ahaa oo sharad ah macnaha haddii beri ama sanad 2 sano kadib haddii caddeyn rasmi ah la helo oo ku soo laabanaysiin xabsiga marka sidii ay ku soo baxeen Roni xabsiga markuu ku jiray ayuu wax bartay markuu oo xabsiga ka soo baxayna shaqo ayuu yeeshtay guri ayuu dhistay yani noloshiis ayuu samaystay balse walaalkiisa Willy xabsiga markuu ka soo baxay wuxuu soo baxay asagoo maskaxda ka xanuunsan noloshii wala qabsan waay marka muddo kadib asaga ayaa codsaday yani sharad inta igu deelaheedeen oo hadhoodii caddeyn markaa la helo oo xabsiga aan ku noqon lahaa xabsigan iska jooga
wuxuu dalbaday inuu xabsiga joogo ilaa cadeen laga helayo macnaha nolosha banaanka uu la qabsan waayey marka sida darteed xabsigiisa ayuu iskaga jiray 2011kii nin la yiraahdo Kyle ayaa wuxuu qoray report ninkan waa journalisto kadib wuxuu qoray qisada oo maxkamadda saddexdan qof sida loo xukumay dilka dhacay iyo sida loo xukumay maxkamadda marka la soo istaajiyay waxyaabahaas ayuu wuxuu ka sameeyay qiso kadib qisadan wuxuu soo saaray internetka 2 sano kadib qisada waxaa akhriyay nin la yiraahdo Eddie waa wiilkii yaraa oo markhaatiga ahaa ninkan oo la yiraahdo Eddie waa wiilkii yaraa oo markhaatiga ahaa isbitaalka asagoo joogo ayaa qoraalkan ama qisadan akhriyay kadib maalimaha ka mid ah isbitaalka waxaa soo ziyaartay nin wasiir ah marka Eddie wuxuu sameeyay ninka wasiirka ah ayuu la hadlay wuxuu dhahay 1975 waxaan sameeyay qalad maxkamadda ayaan soo istaagay markhaati ayaan noqday taasna waxa igu kalifday askarta ayaga ayaa igu kalifay ama igu qasbay inaan ku dhawaaqo magacyadood marka ninkan oo wasiirka ah arinta wax uu ka qaban waayay shaqadiisa ma ahan uu ka aamusay kadib 2014kii Eddie wuxuu aaday maxkamadda ayuu aaday wuxuu dhahay waan ka laabtay hadalka aan ku dhawaaqay ama aan dhahay markay ahayd taariikhda 1975 November 2014kii saddexdii qof oo dambiga lahayn oo xabsiga ku jiray waa la soo daayay Ricky dawladdu waxay siisay lacag magdhow oo gaarayso $1 milyan hal sano kadibna lacag kale ayaa la siiyay maxkamadda ayaa siisay waxayna ahayd $2 milyan iyo $600,000 sidoo kale labada walaal waxaa la siiyay $4 milyan iyo $300,000 intaas ay ahayd qisada waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u shargaray marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام خيبتين مروية حتى خيبتي صدني الحالات مرون كداف وحدوب waxay arkeen gabadhan maadaama ay sidan ku noqotay casharada oo in adeerkeed baro waa ina anagana ka codsanaa yani waxay ku fikireen in ay ayagana ka codsadaan Salman Khan inuu مرون wareeg mid kale waxaa soo dhaweeyay haddana ninkan oo la yiraahdo Bill Gates ninka iska leh shirkadda Microsoft ayaa soo dhaweeyay maxaa way mid kale muddo kadib على أي حال مدة كدب وحا عيارتك ضعف إلهي كبخ سيدا لغة إنجليزكا أنا الكيلابات ما بديهم 1 2 3 ما بديهم ألو صاحب حوضا ومش مصنع هدوك وسوع لنا وحن دوبيا انتي مراي واكن هدوي دومين والله دad كان كو لابا صدح خيبت لبات قيب صدحات إلاوين عبارة لسوغا انتي أي أفتينك حوغا ديغاي أفتين زائد واي عبارة إنا لسوغا واي أفتينك وإستو يرينا كاميرا حنونسان واي كو مركا لشيداي وش أي كوكسو سيني فلاشك دودي ويرانا وحنو كودي لي دادكاس أما bukaanadaas macnaha dadkan waxay soo booqan jireen xarunta oo asaga ku shaqeeyo arbad sumaysan oo dhiibi jiray si ixtiraam u sheeg ya akhi arbad sumaysan oo u dhiibi jiray shaaric ma maraysa iyo kaba ayee waa gacan gashay iyo kawar khabidda Soomaali miyaad kan kabar khabidda boqol mar ku soo celin doontaa wallahi iyo kabar khabidda dariska iyo kabar khabidda sorry tan waa daali tan waa keeni waay waa idin akhrina iyo kabar khabidda dariska ay tahay waxyaabo ay diinta islaamka seen ku keenaa imtixaana almaray soo bixiyay marka sheekadaas dhacday inta la soo qabtay inta la qaaday iyo waxyaabahaas iyo
ka warqabidda deriska ay tahay. Ninkan waxaa lagu magacaabaa James Gray. diyaaradda wuxuu ka soo raacay.